بسم الله الرحمن الرحيم كلنتها بوندا وديال كسو دوادا وركا تي في NTN qodobada warka NTN TV idin haya waxa hameennimadan ay ugu dooraan taliyahan hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo bilaabay baaritaano ku aadan kiiska Igraan Tahliil wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Galmudug oo gaaray degmada Wasiile gobolka Mudug diyaaradaha dagaalka Kenya oo duqeymo ka fuliyay Soomaaliya wararkii u dambeeyay xildhibaan lagu weeraray magaalada Muqdisho iyo muqaabilsanaha madaxweynaha Soomaaliya dhanka abaaraha iyo bini'aadanimada Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo gaaray degmada Buulobarde ee gobolka Hiiraan qodobada wararka dibadda NTN TV idinaysana waxa ugu dooran TPLF oo rajo weyn ka muujisay wada hadallada dhexmari doona ee Kenya ay garwadeenka ka tahay WFP-na waxa ay kisay cunadii gargaarka ahayd ee ay siin jirtay koonfurta dalkaasi Suudaan waa 15 bisha 6 sanada 2022 ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan sida ay sheegayaan xogo sirdoon oo soo gaaray xafiiska warqabadka agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa bilowgii toddobaadkan daafuray baarista kiiska Igraan Tahliil Warsame ila lagu kalsoon yahay oo dhinacyo kala duwan ayaa xaqiijiyay in agaasimaha hay'adda uu wareysiyo kala duwan la yeeshay saraakiisha hay'adda ee quseeyo kiiska maqnaashaha Igraan oo nolol iyo geeri ay ugu dambeysay 15 bishii Juun ee sanadkii hore askar ka tirsan hay'ad shaqaale caafimaad wadayaal gaadiid iyo shakhsiyaad ka baxsan nisa ayaa xoguhu wax ay sheegayaan in uu la kulmay Mahad Salaad kuwaasi oo wax ka weydiiyay kiiska hayeeshee ma cadda inta uu leeyahay xogaha uu ka helay shakhsiyaadkaasi dhanka kale war aysan si rasmi ah u xaqiijin warbaahintu ayaa sheegaya in agaasimuhu uu gacanta ku hayo xogo la xiriira gaari ambalaas ah oo 26 Juun sanadii 2022 qof meyd ah ka qaaday godka Jilcow kaas oo ciidamadu ama kaas oo caasimadda looga sii saaray dhanka gobolka Shabeellada Hoose wararkaasi aan si rasmi ah loo xaqiijin karin wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta Galmudug Cabdi Waayeel oo socdaal ku marayay deegaanada cabariga gobolka Mudug ayaa maanta gaaray degmada Wasiile ee koonfurta gobolka Mudug safarka wasiirka ayaa waxa ku weheliyay xildhibaano ka tirsan Galmudug maamulka gobolka iyo mas'uuliyiin kale maamulka iyo bulshada degmada Wasiile ayaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyay wafdiga wasiirka arrimaha gudaha soo dhaweyn kadib wasiirka iyo wafdigiisa ayaa kormeeray xarumaha danta guud sida isbitaalka weyn ee degmada dugsiyada waxbarashada saldhigga booliska iyo xarumo kale oo muhiim ah oo kuurgal kadib wasiirka Galmudug ama wasiirka arrimaha gudaha Galmudug ayaa ku dhawaaqay in Wasiile ay tahay degmo buuxda isla markaasna ay soo buuxisay shuruudihii degmada ayna mari doonto habraaca degmeynta deegaanada Galmudug ama degmooyinka Galmudug wararka ka imaanaya gobolka Gada ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka Kenya ay saacadihii la soo dhaafay duqeymo culus ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka Gado deegaanada duqeymaha xooggan ay ka geysteen diyaaradaha dagaalka dalka Kenya ayaa kala ah Lekolay Boosar Garsaal iyo Ceelcadde halkaas oo ay badi ku nool yihiin dad xoolo dhaqato ah waxaana duqeymaha ay geysteen qasaare kala duwan dad goobjoogayaal oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa sheegay in duqeynta ay waxyeello aanan la xaqiijin karin ay ka soo gaartay dad shacab ah isla markaasna duqeymaha ay ku dhinteen xoolo fara badan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Gado ee dawladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan duqeymaha culus ee ay ka fuliyeen diyaaradaha dalka Kenya deegaano ka tirsan gobolka Gado diyaaradaha dagaalka dalka Kenya ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay sidaan oo kale duqeymo qasaare xooggan geystay uga fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gado hayeeshee dawladda Kenya ayaa beenisay inta badan duqeymaha qasaaraha badan geystay ee ka fuliyeen diyaaradahoodu gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gado hagaag wali waxaad nagala socotaan NTN TV warar dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar bambaano oo xalay lagu qaaday hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan Jibriil ayaa ka badbaaday weerar bambaano oo xalay lagu qaaday hoygiisa oo ku yaala xaafadda Taleex degmada Hodan ee gobolka Banaadir xildhibaanka la weeraray ayaa ka mid ah xildhibaanadii laga soo doortay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gado waxaana saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ay sheegeen in weerarkaasi uu geystay qasaare kooban oo gaaray ilaalada xildhibaanka hoygiisa la weeraray waardiyeenaysay
ama ilaalinaysay ciidamo ka tirsan booliska degmada Hodan ayaa gaaray daqiiqada kadib markii uu dhacay weerarkaasi bambaano ee lagu qaaday hoyga uu Muqdisho ka degan yahay xildhibaan Jibriil kuwaasi oo howlgalo baaritaan ah ka sameeyay agagaarka hoyga xildhibaanka ha yeeshee kuma aysan guulaysan inay gacanta ku soo dhigaan raggii weerarkaasi bambaano fuliyay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan dhinaca gurmadka iyo bini'aadanimada Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Buulobarde ama degmada Buulobarde ee gobolka Hiiraan sawirro laga soo qaaday meelihii ay booqdeen wafdigu waxaa laga dareemayay diif iyo darxumo baasan oo ay wajahayaan dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan halkaasi waxaan maanta safar shaqo ku tagnay degmada Buulobarde ee gobolka Hiiraan waxaan u kuurgalnay xaaladda dadka abaaruhu barakiciyeen ee ku dhaqan gudaha iyo duleedka degmada waxaan soo arkay xaalad bini'aadanimo oo aad u daran waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed kuwooda waxaysta hay'adaha deeqaha bixiya qaramada midoobay injiilada caalamiga ah iyo inta kaleba inay ka qayb qaataan sidii dadkaasi wax loo tari lahaa ayuu yiri Master Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xoogagga Tigreeda oo in muddo ah dagaal kula jiray dawladda Itoobiya ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wafdi heer sare ah oo ay soo dirsadaan wada hadallada ay garwadeenta ka tahay dawladda Kenya oo lagu soo afjarayo colaadda ka taagan gobolka Tigreey waqooyiga dalkaasi Itoobiya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in dawladdiisu ay samaysay guddi wada hadal la yeelan doona TPLF si loo soo afjaro colaadaha ka taagan gobolka waqooyiga ku yaala ee Tigreey TPLF iyo dawladda Itoobiya waxa ay rajo ka muujinayaan wada hadallo lagu dhameynayo colaadda ka taagan gobolka dagaalka u dhaxeeya TPLF iyo ciidamada dawladda Itoobiya ayaa ka qarxay gobolka Tigreey bishii November sanadkii 2020 kaas oo ku faafay gobolada dariska la ah sida gobolka Amxaarada Canfarta balse xaaladda ayaa dib u deganaatay kadib markii dawladda dalkaasi Itoobiya ay iskeed ugu dhawaaqday xabad joojin dhinacooda hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunada adduunka ayaa joojisay gargaarkii ay siin jirtay koonfurta Suudaan iyadoo ugu yaraan 1.7 milyan oo qof ay gaajaysan yihiin oo dalkaasi ku nool kuwaasi oo wajihi doona cunno yari haddii ay gargaarka joojiso WFP baahida bini'aadanimo oo aad u badan miisaaniyadda aan helnay sanadkan haddii ay sidan ku sii socoto waxaan mustaqbalka la kulmi doonaa dhibaato intaasi ka sii daran oo ay ka mid yihiin dhimasho nafaqa darro cunno yari ayuu yiri adinka badeejo oo ah kusimaha agaasimaha WFP koonfurta Suudaan waxaa soo food saartay dhibaato aan hore loo arag dhanka gaajada cunno yarida iyo xaaladda bini'aadanimo in ka badan 60% dadka waxa ay soo food saartay cunno yari aad u daran sida ay sheegtay WFP warkii oo kala socoteen NTV waa naga intaas daawadayaal warkan waxa idin soo saaray inina farsameynayay Liibaan Maxamed Aadan anigoo Cali Maalin oo idin la socodsiinayay waad ku mahadsantihiin daawashadiina nabadgelyo NTN TV